Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Faransiiska ku baro af Soomaali. Maanta cashirkeena ugu horeeyo waxaan baranaynaa dharka. Dharka waa muhiim. Iyo sida ugu kala baxaan masculine iyo feminine ayaan ii sharxaynaa wixii in iyo wixii aan ah. At the same time isla mar ahaantii sida ugu kala fahantii wixii in qaadanaa iyo wixii aan qaadanaa iyo waxa da qaadanayo oo esta markay raacayso kale jamac way Faransiiska zee baa la yiraahdaa. Marka anagoo isku dayayno waxyaalo badan at the same time inaan fahansiino cashir yar oo gaaban weeye. Un pantalon waa minuscule. Un pantalon hal surwaal. Une chemise waa féminin chemise. Chemise-ka waa shaatiga. Une robe ayadana ooba ugu dambeysa waa féminin. Une robe hal cambuur. Une jupe ayadana waa féminin ooba ugu dambeysa er walba ooga badanka isku mid ma qaar waxaa jira ayaga oo ugu dambeysa ay noqdaan minuscule ay noqdaan. Marka Faransiiska uu iska fasiraad badan yahay waa luqad aad iyo aad kastoo yar u barakeysan. Marka waxaa weeye marka qaarkooda ma dhigi karto wax walba oo ugu dambeeyo waxay noqonayaan feminine laakiin badankooda waa feminine. Inta u badan adiga 8% yar 20 oo kaliya ayaa waxay ka noqotaa minuscule ayada oo ugu dambeyso. Insha Allah cashir kale ku qaadan doonaa. Un jean waa asne en ba u dambeysa jean waa jeanska. Des chaussettes ayadana s ba u dambeyso waa dos ma qaadanayna marka waa sharabaadka ama sigsaanta sida loo yaqaano. Des chaussures ayagana s ba u dambeyso waa jamac marka kabaha koleebo laba kabood la qabtaa marka laba kabo midig iyo bidix laba kabood la gashtaa marka mar walba waa jamac waa labo isku xiran marka waxa la leeyahay des chaussures marka waa jamac kabaha. Un t-shirt ayadana t ba ugu dambeyso waa waxa leeyahay un t-shirtiga badan anaga waa isticmaalaa t-shirt baa dhahnaa ama shaatiyada yar oo gacmaha ka go'an waaye. Une veste ooba ugu dambeyso waa féminin baa leeyahay une veste. Une écharpe ooba ugu dambeyso waxaa la leeyahay in waa féminin une écharpe waxaa la dhahaa kan qabowaha dhuunta la iskaga duubto rag iyo dumar bay leeyihiin. Une ceinture ooba ugu dambeysa waxaa leeyahay une ceinture waa suunka la xirto. Une casquette ooba ugu dambeysa waa féminin une casquette waa koofida ay qaataan ragga ama wiilasha yariiska ilmaha xataa loo xiro. Marka cashirka anaga hadda waa soo dib mareynaa kulli oo soo akhrinay aniga oo u kala saarin in iyo aan marka waxaan rabaa inaad fahantiin aniga aada iyo in kuwan ka reebaya marka insha Allah ka soo shaqeeyo wixii qaadanayo oo feminine ah iyo wixii feminine ahayn iyo wixii minuscule ah. Marka pantalon ma inba mase waa minuscule miya mase waa feminine adinka kasoo jawaabaya. Pantalon, chemise, robe, jupe, jean, chaussette, chaussures, t-shirt, veste, écharpe, ceinture, casque. Marka pantalon waa surwaal, chemise waa shaati gacmo dheeraha ah ama shaatiyada kala qaato. Robe waa cambuurka. Jupe waa goonada. Jean waa jeanska caadiga ah. Chaussette waa sigsaanta chaussette. Chaussure iyo chaussure bay kala yihiin. Chaussureka sida aan sheega sos ba ugu dambeyso waa jamac. Chaussette waa sharabaadka. Chaussure na waa kabaha. T-shirt waa dharka gacmaha ka go'an shaatiyada gacmaha ka go'an funaanadaha gacmaha ka go'an. T-shirt vest
vest iyadana waa jaakadaha yaroo haafka ah. ishaaq waxa weeye isakan dhuunta lagu xirto qowbaha. ceinturena waxaa weeye suunka. casquette koofida. marka wixii femina waxaan u maleynayaa waa kasoo shaqayseen. marka waxaa weeye pantalon. waa un pantalon waa minuscule. wuu noqonay un pantalon wuu noqonay. une waa femina ayadana in chemise bay noqonaysaa. une robe ayadana waa femina waa une robe waa cambuurka. in jeep baa ugu dambeysa ayadana